بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سمكودس وأنا قاعد أفتح عبد الله يكورس كني تحنا أساسي رياكت جي اس قيبتنا راح نكسو قاعدني إنه قاعد يكسني هو كله ده use context كاسو نوفذيني إنه context جينا دحقلنا سلامر كان إنه كتجنا consumer كاستعمالي render بروبسك قيبتنا راح نكو قاعدنا سيدة context جن أو كلا refactor لوجو سمايا أيو context جن وحال ربعين وmanage كرايو أما معموله theme كينن waxaa dhici kartaa in abka ku soo dartid context kale mid tusaale ku maamulaya authentication ka login ka kale iyo mid languages ka ku maamulaya localization ka context-gana marka waxaanu ka dhiganaa file gaar ah maadaama uu wax badan la rabo inuu manage kareeyo ugu horeyn waxaan tagayaa source-kayga halkaan iyo file kaga darayaa file-kaas wuxuu hoostiga folder loo context waxaan u bixinayaa tusaale ahaan theme context provider.csx magacoodu dheeraaday no problem folder dhaho context ka bacdina wuxuu la sameeyaa componentska kadibna waxaan sameysanayaa reactive functional component extension kan loo jiray waxaan xogta ka soo qaadanayaa marka indexkeenan kadib waxaan ka soo qaadanayaa marka ugu horeysa state management kan oo dhan waxaan leeyahay cut ma rabo in indexku manage kareeyo waxay manage kareynaya context-ga halkan aan ku paste gareynayaa sidoo kale waxaan rabaa inaan indexka ka soo qaado create context iyo use state kan copy maadaama halkan use state isticmaalaya waxaan ku bedelinayaa intan context-ga sidoo kale ka soo qaadanayaa context-gana ka tayaan leeyahay waxaan keenayaa xagga sare ee component-gayga markana export uma baahni maadaama aan component dhex gelinayo ugu dambeyn waxaan soo qaadanayaa provider kan waxaan leeyahay copy hadhowaan iska saaraynaa waxaan ku bedelanayaa content-ga return-ka kabacdina waxaan leeyahay provider-kan wuxuu isticmaali doonaa maadaama aan component ka dhigay render probis kabacdina waxaan leeyahay probis.children la sheegayana waxa weeye waa component-gan hoostaga so intaan markaan sameeyo waa save garaynayaa component-geenan keliya waxaa ugu dambeeya aan sameynaa inaynu export garayno theme context provider oo inoo haynayo component-geeni weynaa iyo theme context oo inoo haynaya object-ga inoo haysay consumer-ka iyo provider-ka so waxaan isticmaalayaa named exports theme context iyo tusaale theme context kana marka waa component hadda inta magaca waxaa theme context component kana waa object-ga haysay consumer-ka iyo provider-ka marka export default adeegsanayo default-gana waa iska saaraya save ayaa leeyahay hadda component-geeni sidaas ayuu diyaar inoogu yahay kaliya waxaan u baahanahay inaan adeegsano sidee u adeegsan karnaa indexkeena ayaynu tegaynaa waxaan soo import garaynaynaa theme context provider file kala dhaho waxaan ka soo import garaynaynaa ./folder kala dhaho context/file-ka magaciisa waayo inta markaan sameeyo theme context provider kan waxaan ku bedelanayaa provider-kii hore aan samaystay maadaama hadda isticmaalahayn kii hore wuxuu ahaa object component dhexgelisa kana waa component toosa sidoo kale value-gana uma baahni marka qarka u baahan kartaa value-ga inaad haysatid oo marka value-ga halkan sidan ku sameeysid uu ku yaalo aragtada halkan rabto inaad indexka value-ga ku isticmaashid kana tagaysaa xaaladaha this.probis.value sidaas isticmaalsa laakiin macal value-ga waxaan rabnaa inuu haysto component-geena sidaa darteed waynu ka saaraynaa indexkeena markaan save garayo cilada waxaa ka soo noqday about-kii iyo nav-kii maadaama ay isticmaalayeen context-gii halkan oo la jiray waxaan tagayaa about-ka theme context variable-ka magaciisa inoo jira oo waynaga halkan export garaynay isku magac weeye dib inaguma hayso laakiin meeshanu ka doonayna weeye laba mar baynu kor u kacnay folder kala dhaho context kabacdina file kala dhaho theme context provider about-ki saasaynu ku xalinay ciladii weli waxay ka taagan tahay navigation-ki intan ayaan koobi garaysanaya maadaama isku meel yaaliin about-ki iyo navigation-ku nav-kiina ayaan tegayaa isna kabacdina waxaan ku bedelanayaa intan marka theme context component-ga ama file-ka iga doono save wax walbana hadda waxaan rajaynayaa sidoodii u shaqeynaya nice waaye weli dark mode si fiican uguma shaqaysin marka idinka idin deynayaa inaad ku soo dartaan
tusaale ahaan contactigan oo kale laakiin aboodkan un baan ku tijaabiyey haddaad rabtid inaad contactiga gaarsiisid pagekana kalena saasoo kale u samaynaysaa tusaalaha inaad fahantaan muhiima